sharaf bay noo tahay maanta xafladan inaan xariga ka jarno waxmaryahan quruxda badan labada qol ka kooban iyo musqusha iyo barandada waxa loo dhisay dad tabaaleysan oo ka soo noqday qaxootiyaha Dadaab dadkii barakacayaasha ahaa ee ku barakacay Jubbaland iyo kuwii qayb yar oo ka tirsan bulshada kuwada deegaanka marka u horeysa kulligiin waa salaamantihiin madaxda halkaan isugu timid hay'adda UN Habitat wixii maanta ka bilowdana guryahan waa la degahayaa oo dadkii shicibka ah waa degahayaan waana imaanayaan 15 kan qofna waa dadkii saambulka ahaa UN Habitat has been part of providing shelter solutions across the country for some time, and this is one of our examples of our work. I would say I am very pleased to be part of here today, as I call it a new settlement. I just don't call it a shelter because we are building communities here. But above all, I want to look at the beneficiaries and say we also want to see that they enjoy this settlement and see it as a good start in life. But this would not happen without the support of the government of Jubbaland. So we thank you for the collaboration, especially MOI, local authorities that tirelessly got the land and sorted out all the problems that happened during the construction. But I want to express my appreciation to the Commissioner of Refugees that also tirelessly provide things for people that are. Shelter is a key part of people's livelihood, and we believe that this community can be replicated. We also believe that all the surrounding areas will benefit from this in terms of the land values, the community, and expansion of the city as well. So we want to thank you for your support. But we as Habitat, we also see that this is the heart of what we believe in. This is the heart of how we provide support to different communities. And we believe it's not going to end here. We will try and make sure that all other things that we're doing feeds into this program. Thank you very much for your time. Thank you, Vice President, for taking your time and supporting this program as well. Thank you all. Thank you. oo ku nool gabdhaha Jubbaland kamid ah oo ku nool magaalada Kismaayo xoog u xamaalata iska ahaa ilmaha agooma iyo yateen iska heestay waxaan ugu mahad celinayaa hay'adaha samafalka ah oo nasiyay maanta guryahan NRC iyo NRC oo guryahan ugu mahad celinayna guryahan ugu mahad celinayna dawladda Jubbaland wax qabadkeedii oo maadaama hadaan nabad la haysan maanta ma hadaan Ilaahay baa iska leh oo keenay hadaan ma had la haysanina meesha ma taagnaadeen waxaan ugu mahad celinayaa dawladda hay'adda noo dhistay guryaha oo soo dejiso hadda saan ay tahay alaabtaydu waan ku soo rartay waan ugu mahad celinayaa Jubbaland dayax weeye daruurta ay la meerisaa dunida Afrika oo dhan baa looga yimid dalxiis dushiisa ninkay ku deeqdaa la diirsada Allah noo daayay darajaale in islaam waxaan si gaar ugu mahad celinaynaa hay'adii UN Habitat NRC oo inna qayb ka ahayd waxaan mahad celinaynaa annagana isku mahad celinaynaa sababtoo ah dhulka u jeedin iyo amnigiisii iyo qorshihiisii baan bixinay ilaa baa maad kale maadaas madaxweynaha dawladda goboleedka Jubbaland baa iskale fikradda deegaanka lagu dagayna dadka soo laabanaya ilaahay ka sugo isaga lahaa